bismillaahi raxmaani raxiim magacaygu abuubakar naasir cali kusoo dhawaada macadka tababarada iyo tiknoolajiyadda ee buundo weli waxaa ku guda jirnaa barnaamijkeeni barashada Microsoft Word waxaan maanta qaadan doonaa cashirkeeni toddobaad waxaanu ku baran doonaa modifying page layout oo ah sida aan wax ugu bedeli lahayn warqadda ama page-ka Word documentiga aan ku baran doono waxa ka mid ah marka ugu horeyso in aan ciwaankeen usoo sameysano wax loo yaqaano border and shading oo ah qoraal ayaa noo diyaarsan qoraalkaas rabnaa marka hore ciwaankeena soo gelino border and shading kadibna aan bedelno to change the paper size warqadda oo inta badan warqadaha waxa la isticmaalaa waa A5 iyo A4 marka iyadana aan bedelno warqadii sidoo kale to format page margins oo ah in warqadda dhinacyaheeda aan bedelno waxa kale noogu xigo in aan ku soo darno to add page border qada in dhinacyaha aan ka gelino page border iyo marka ugu dambeeyso ah to add watermark oo ina dhaxda aynaan ka gelin wax loo yaqaan watermark oo halka waxa inoo yaalo waa practical documentigi oo Word-ka ah marka waxaan rabnaa cashirkan English-ka warqadan ama page-kan ayaan rabnaa inaan format gareeno marka ugu horeyso waxaan ka bilaabeynaa wax loo yaqaan border and shading oo ah in aan border and shading u sameeyno waxaan rabnaa marka ugu horeyso inaan ciwaankan u sameeyno border and shading marka ugu horeyso waxaan sameynaynaa waa select gareynaa qoraalkeena ayaan dooraneynaa qoraalka marka aan doorano kadibna waxa imaanayna halkaan ay ku qoran tahay home aniga aan joogno halkaan waxa loo yaqaan shading halkaan waxa loo yaqaan border marka ugu horeyso waxaan ka bilaabeynaa inaan soo gelino border waxaan dooraneynaa border kadibna waxaan dooraneynaa all borders marka aan dhahno halkaan waxaan u jeednaa in ciwaankii uu soo galay border waxaan rabnaa sidoo kale halkaan inaan color ku soo buuxino oo loo yaqaan shadingka hadii aan rabnana isagana waxaan sameynaynaa halkaan imaanayna kadibna waxay noo soo baxay theme of colors marka waxaan iska dooraneynaa hal color kamid ah ayaa iska dooraneynaa hadda marka aan fiirino ciwaankeena wuxuu noqday ciwaan aad u qurux badan marka kasoo gudubno warqadda marka hadda qoraalka waa inuu diyaarsan yahay cashirkan markii hadhow loo baahdo in la daawaco waxaa loo baahan yahay warqadda inaad iska saxdo inta badan waxaa la doortaa A4 marka sidee loo bedelayaa paper size marka ugu horeyso waxaad tegaysaa page layout marka aad tagto halkan page setup groupkan waxaa ka furaysaa size marka aan furno by default hadda waxaynu dooran letter markii aad rabtid documentigan inaad daawacdo ama cabirka saxda cabira ayaa halkaan ku jiro marka anaga hadda waxaan soo dooraneynaa wax loo yaqaan A5 hadda cabirkii aad ayuu noogu saxmay intaas markaa kasoo gudubno waxaa jiro wax loo yaqaan margins oo dhinacyaha documentiga ayadana waxaa loo isticmaalaa in laga soo sikiyo ayadana waxaa marka hore sameynaynaa page layout ayaa imaanayna kadibna margins ayaan dooraneynaa sida normalka waxaa loogu talagalay afarta dhinac in min hal laga soo sikiyo oo top left bottom iyo right waxaa jiro ayagana habab kala duwan tusaale hadda waxaa jira narrow oo kale narrowga marka aan isticmaalno wuxuu sameynayaa documentiga qaybta geeska ayuu kasoo bilaabaa laakiin sida caadiga haddii aadan book diyaarin warqad iska caadi ay tahay waxaa fiican in aad marginska aad dooratid normal si labada dhinac afarta dhinac min hal loogu soo sikiyo hadda waxaa ujeedaa inaan cashirkii aan warqadii aan soo dooranay A4 sidoo kale dhinacyihiina aan min hal ayaan kasoo sikinay sidoo kalena warqadeena waxay noo dooran A4 waxaan rabnaa markaad inaan soo gelino border markaan rabno border inaan soo gelino marka ugu horeyso waxaan tegaynaa page layout marka aan doorano kadibna page background ayaa waxaan ka dooranaynaa page border marka aan doorano kadib halkaan waxaan furaynaa artiga markii aan furno halkaan waxaa ku jira frames kala duwan marka anagana waxaa iska dooranaynaa hal frame oo ka mid ah tusaale waxaa iska dooran doonaa framekan oo kale framekan markaa doorano kadib waxaa halkaan noogu siinaya preview in dhinacyaha frame noocaas uu kasoo galayo kadib waxaa leenahay okay halkaan markaan fiirino hadda warqadeena waxay inoo soo galay waxa waaye waa page border taasoo waxaa loo yaqaanaa page border marka ugu dambeyso waxaa rabnaa inaan kusoo darno wax loo yaqaano watermark tusaale documentiga markaan fiirino wax copyright ma lahan qof walba iska daawacan karto marka haddii aan rabno inaan soo gelino watermark marka ugu horeyso waxaan imaanaynaa page layout kadibna waxaan dooranaynaa watermark markii aad doorano halkaan waxaa ku yaalo habab kala duwan tusaale anaga waxaan u baahanahay habkaas oo confidential wankaas oo kale u baahanahay marka waxaan dooranaynaa habkaas halkaan marka aan fiirino qaybtan dhexda warqadda gadaal waxaa ka muuqda wax loo yaqaan confidential marka waxaan rabnaa
inaan iska bedelno qoraalkaas oo aan ku qorno magaca macadka. marka sideen u bedelaynaa? marka hore page layout imaanaynaa, kadibna watermark ayaan furaynaa, kadibna waxaan dooranaynaa custom watermark marka aan doorano qaybtan textiga imaanaynaa, customka meesha confidentialka iska tiraynaa, kadibna waxaan ku qoraynaa Bond Institute, kadibna waxaa leenahay okay markii aan dhahno hadda marka aan fiirino warqadeena qaybta dambe waxaa ka muuqato magaca macadka oo ah Bond Institute. habkaas waxaa loo yaqaanaa watermark. cashirkeeni 7 halkaas ayaan kusoo gabagabaynaynaa. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.